waxa weeyaan tallaalku adduunyada aan ku noolhay maanta in ilmo la arko socdo oo aan tallaalaynin waa arrin yar qariiba adduunyada horu martay dhimashada lama joojin karo oo qof wax waloo nooli waxaa waqti laakiin silcaa lagu yareeyey oo intii ilmaha xanuunku maruu ku dhaco aw silci lahaa ee aw ilaa iyo malaga adduunkooda 80 sannadood 90 sannadood aw gaadho xanuunkii aw qabi lahaa ayaa lagu yaraynayaa marka waa inaan ku dadaalaa wasaaradda waan ku bogaadinaya caafimaadka laakiin waxaan xasuusinayaa wasaaradda haddii imika program la qabto oo halkaa lagu dhaafo waxaa laga yaabaa 5 sannadood 4 sannadood inay muddo qaadato carruurtii dhalatay muddadaasi way waayeen markaa tallaalkii markaa agaasimuhu guud uu sheegay imika inay geynayaan meel kasta oo caafimaad isbitaallada meel kastaba tallaalkii la geynayo laakiin hore ahayd in loo geeyo waa lagala daahay waxaan annaguna waa ku dabagelanaa kamadax ahaan madaxweynaha iyo aniguba waa ku dabagelanaa inuu tallaalku yaallo cusbitaal kastaba ama public ha ahaado ama private ha ahaado waa inuu yaallaa ilmuhu markuu dhasho waa in la tallaalaa oo weliba uu yahay meel kastaba in la gaadhsiin karo oo ay gaadhi karto hooyadu markay ilmaha dhasho in meeshaa lagu tallaalo sida adduunyada waxa weeyaan waqti bay nagu yar qaadan laakiin haddaan dadaallo waxay noqonaysaa inaynu gaadhi karano wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaan leeyahay waa idinku daba jooganaa idinkaa mas-uuliyaddaa qaba waa inuuna ilmo somalilanihii 2 sannadood sanadka wixii ka dambeeya waa inuuna waayin tallaal waa inay cusbitaallada dawladdu ku qasban yihiin inay tallaalka dhigaan cusbitaalka oo markuu ilmuhu dhasho lagu tallaalo cusbitaallada baraafitkuna waa inay hayaan oo ay geeyaan waa inuuna noqon laga bilaabo maanta in la daahfuro wasiir oo la yidhaaho waxaan tallaal baan daahfuranaa laakiin ay noqoto meel kastaba inuu yaallo oo ilmuhu markuu dhasho sida adduunyadu ay tahay la tallaalo mar labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hooyooyinka waxaan bogaadinayaa shaqaale weynaha u diyaarkaa inay barnaamijkan fuliyaan waxaan idin leeyahay jasaakumullah khayr laakiin si daacada oo howlkarnimo ah u fuliya waxaanu soo dhaweynayaa mahadnaqayaa bada saxaafadda waxaan leeyahay dhammaantiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tallaalkaa isku dhafka ah ee 3 cudur in la fulin doono muddadaa 5 maalmooda laakiin la joogtayn doono wasiir iyo agaasimo guud waa in la joogteeyaa oo aanay noqonin wax maalin la qabtay sanadaas la gilaaway oo haddana marka dambe dib loo bilaabo should be continuous dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin waan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay weliba shaqaale waxaan ku adkeynayaa inaad hubisaan inaad adkaystaan meel walba gaadhaan oo aad carruurta soo tallaashaan haddii aan la yidhaaho